bilihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland safar ku joogay madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. haddaba warar aanu ka helnay ila lagu kalsoonaan karo iyo waxay sheegayaan in madaxweyne Xaaf Hargeysa u joogo safar hawlo ganacsi ah. maalmihii ugu dambeeyay waxaa madaxweynihii hore ee Xaaf martiqaad iyo casuumado u sameeyay qaar ka mid ah ganacsatada Somaliland oo ay ugu dambeysay casuumadii toddobaadkii hore uu duleedka magaalada Hargeysa ugu sameeyeen ganacsato uu hogaaminayo gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed Iid. ilaa hadda xukuumadda Somaliland iyo madaxweyne Xaaf midna kama hadal ujeedka rasmiga ah ee uu Hargeysa ku joogo madaxweynihii hore ee Galmudug. waxaase xusid mudan inuu Hargeysa kaga soo horeeyay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumaddii Sheekh Shariif mudane Cabdisamed Macalin Maxamuud. si kastaba ha ahaatee xukuumadihii kala dambeeyay ee Somaliland ayaa waxa ay markasta ku celceliyaan inaan mas'uul sare oo ka tirsan Soomaaliya aanu cagta soo dhigi karin deegaanada ay maamusho Somaliland.